kusimaha madaxweynaha galmudug ahna madaxweyne ku-xigeenka mudane cali daahir ciid ayaa maanta shir gudoomiyey shirka amniga galmudug shirkan oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka galgaduud saraakiisha ciidamada nabad sugidda booliiska militariga iyo qaybaha kale ee ku sugan galmudug ayaa diiradda lagu saaray amniga guud ee galmudug iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in galmudug ay diyaar u tahay fulinta baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee ahaa in guud ahaanba Soomaaliya laga bilaabo dagaal ka dhan ah argagixisada al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale shacabka reer Baxdo iyo ciidamada amniga ee galmudug uga hambalyeeyay guushii ay ka soo hooyeen dagaalkii ay dhawaan la galeen argagixisada al-shabaab oo noqotay darbaaxsho lama ilaawaan ah ay tahay 22 bisha June waxaan halkaan caasimadda dawlad goboleedka galmudug inooga qabsoomay shirkii amniga dawlad goboleedka kaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada xoogga booliiska iyo nabad sugidaba shirkan waxaan awood ku saarnay guud ahaan amniga galmudug sidii loo laba jibaari lahaa loona sii xoojin lahaa waxaan halkaan taageeraan uga diraynaa reer Baxdo oo xaqiiqdii shaqo fiican qabtay annaga ka dawlad galmudug ahaana gurmad fiican oo mataqaana dhan walba aan u fidinay shaqada ay qabteen reer Baxdo iyo dagaalka ay la galeen qawareejta al-shabaab waa mid la rabo in Soomaaliya oo dhan ay uga dayato gaar ahaan degmo walba oo galmudug ah waa inay u diyaar garoobaan sida reer Baxdo ay u diyaar garoobeen annaga dawlad goboleed ahaan galmudug ahaan waxaanu diyaarinay ciidamadeena dhammaan saraakiishii iyo ciidamadii galmudug waxay diyaar u tahay la dagaalanka al-shabaab waxaan halkaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dawladda cusubba oo runaantii gurmadkeedii iyo garab istaageedii uu na soo gaaray waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku amaanayaa sida ay uga go'an tahay la dagaalanka al-shabaab madaxweyne baaqaagii waa fulinay galmudugna waxaa ka bilowday dagaalkii lagu ciribtiri lahaa shabaab iyo qawaariijta waan wadi doonaa waxaan sidoo kale rajaynaynaa isteediyada kale inuu ka bilaabmo oo state walbaba shaqada la dagaalanka al-shabaab ay ka bilaabato si culeysku uu kala yaraado mar labaad waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha halkan garbahayga joogta oo run ahaantii dhiig iyo dhacaanba u huray la dagaalanka qawaariijta al-shabaab iyo sugidda amniga galmudug waxay diyaar u tahay inay la dagaalanto qawaariijtaas dhibaatada ku haysa amnigeedana ay sugato warbaahinta qaranka dhuusamareeb